guddi inuu jiro iyo in loo sameeyay dawladdu ay guddi heer qaran u sameysay cudur xanuunkan wax macnaha ay sameynayso sax way sameynay laakiin hadda xaaladdan taagana wax macnaha sameynayso mal waxaan ku laabanaa marka hadalkii madaxweynaha ka dawlad ahaan oo dhahay anaga wax awood aan u hayn cudurkan mal waxa kugu daliilay inaanay u hayn guddi muxuu sheegay haduu madaxweynihii qaranka saasiray waxa kugu daliilay inaanay u hayn waxa la xiray iskuuladii waxa la xiray jaamacadaha waxa la xiray dugsiyada quraanka waxa u daray oo la xiraaya caawa maqaayadihii iyo meelo markaas waxa la xiray hadan isbitaalada isbitaalku ma maqaayada isbitaalku ma iskuula ma dugsi quraana meesha qofkii buka la geyn lahaa hadii la xiray dadka xagee la geynaa badweyntii lagu shubaa isbitaalka Erdogan wuxuu loo dhisay oo loo qalabeeyay inuu naf badbaadsho sidee ku aqbashay dawladdu ama guddi haduu jiray iyo ay ku aqbaleen in la yiraahdo isbitaalka Erdogan albaabaha la isugu dhuftay intee aadaya dadka wax qariiba oo aan adduunka ka dhicin waaye waxaan aqbali karnaa ma aan barofishikan aan ku shaqeynayno anagu 22 sano ka hor la ii dhaariyay shahaado markii la ii siinay inaan qodobadan ixtiraamo qodobadii aan ku soo dhaartay inaan ixtiraamo oo sharci bini'aadan degsaday ah ma ii fasaxayo inaan daawado kana aamuso waxa noocan dalka ka dhacaya sax ma aha wax la aqbali karana ma aha meeshii dadka u ordi lahaayeen in la yiraahdo way idinka xiran tahay sidii ay maqaayad tahay mar laakiin anigu waxaan ku qancay hadalkii madaxweynaha waana saas waxa wasaaradda dad aan u ahl ahayn mar walba intii laga buuxiyo ay fashilkan ugu dhamaanayso waxaan marka codsanaynaa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa in yaamba siyaasad ahaan iyo 4.5 kan wareeriyay iyo halagu shaqeeyo halagu socdo laakiin markay xaaladda noocan imaato بالله عليكم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا وحبين ويدين إنه وحش رود إنكم حري صوبته أنا وحن كجرا ذاتك فركوتيرس إنه هنا عملنا وحبرش أنت يكبل لبين حنان عروه إلا جامعة PhD دكتوريت كل ما أيوة عم بحنين وحلا عجا ينكجرا يعني نصيب كاس إلهي بأسيء وحنكم هاتسن إلهي وحكم هاتسن سومالي ما ضانو درنته قلب و 5 مليون laga soo bixinayo oo coronavirus covid-19 anu ma fahmin hadii laboratory waa yaala la yiri inkastoo wali calaamad su'aal saaranta ma oxygen plant iyo ventilator iyo ICU waxa 5 milyan in laga soo bixiyo la rabaa waxa soo dhan wax kaafinaya waxa nagu soo wajahan ma jiraan waxa rabaa laba arrimood horta in ugu bishaareeyo ummadda Soomaaliyeed inta maqlaysiin inta ay si gaarsiisaba virus kan sida virus oo dhan uu badan yahay surface wuxuu ku noolaan karaa gacmaha dhaq waxana loo leeyahay frequently ilaa horta daawada male talaalna ma lahan marka gacmihiina hal dhaqo hana la kala fogaado neefti caliyooyinkii isgaari sababtoo ah 72 saacadood ka bacdi ma noolaan kariyo wuxuu kaliya ku noolaan karaa meel temperature-keedu uu qabow yahay ama eber ka hooseeyo markuu temperature-ku eber ka sii hoos maro waa markuu ku sii bulaalayo laakiin temperature bila meeshan taal xamar oo anagii aan afgan bay u dhici rabno mid uu virus ku noolaan karo ma haduu surface kasta yimaado horta taas ilaahay maadiya haduu noo yimaado xataa inaanu ahayn meel uu aad ugu cimrin karo wacyigelinta oo laga sheegayo telefoonadii oo dhan hadda ka dhacaysa oo dadkii oo dhan la gaarsiinayo oo ah talaabadii ugu horeyso ugu weyn in la qaado ay ahsan tahay waxa ku xiga talaabooyinka ah dhaqangelinteedii waxa la yiraahdaa gacmaha dhaqo dad badan baan awoodin magaaladii caasimadda ahayd oo tan joogna hadda ah ayaa waxa deegaankeeda uu 3 meelood meel hadawna ka badanaynin bayahay baraka camiran ma haystaan biyo 20 litir oo ay dulku soo xamaasho ay rabtay inay ku maareyso ilmahaas kuwa ay ugu farxalayso ama iyadu ku farxalanayso maaha maasi wax sanka lagu xirtay wax gacmo la galiyeen warkood badaa seeway marka talaabad ku xigto inaan sameeyna aan rabno mar walba Ibrahim xabeebaan ka duuleynaa khibradu uu leeyahay dalkan oo intaan ka liito darood foolxun intuu ku dhacay abaaro biinta laga qaaday gadal laga cabayo wasiirna ka ah xildhibaanna ka ah
marka khibradeedu leeyahay waxaan rabnaa kumanaanka kun ee dhakhaatiirtahay uu yidhi hal la howlgeliyo xildhibaan xabeeb waxyaalaha ugu horeeya inay noo sameeyaan aan rabna waxaa waaye suuqyada maqaayadaha isgoysyada kontaroolada raashinka magaaladan kama baxo waa soo galaa in wasaaradda caafimaad gobolka banaadir degmooyinka ururka dhakhaatiirta gidi intay iska kaashadaan waxaa lagu sheegay messageka hormuud oo implementation oo dhaqangelin ah la tusiyo dadka ayadoon meelna loo raadinayn walaa china walaa germany toona horta bal aan joojino waxaan aan xagga u hadno aan xagga u hadno halaha haysato haddii aad isku dudubaridato way kugu filan yihiin caagaga jiirgaana meel laga dalooshay tuba la suray dahabshiilaana tusta maalidooda tanagii ay samaysay intii la dhigo meel walba in la yiraahdo sidaan faraha u dhaqda guryaha qaarkood waxaa degan 32 ruux guri 20 ah 20 lagu dhufto 20 ruux 30 afartameeyo oo hal musqul isticmaalaya maxaa dad guri ku xareynay ilmahan haddii meel uu sheexdo dhinaca dhulka dhiga habeenkii uu helay nasiib kula oo kullu dugsi jiri kullu iskool jiri kullu jaamacad jira ah markii la yiri kulli ka wada joog waxaan u maleynaa inta caburisay inta qarxe inta caburina inta qarxe xaaladaas waa xaalad